goobtan uu dhagax dhigay ra'iisul wasaare xigeenka dalka Turkiga Bakir Bozdag oo ah nus kiiloomitir oo square ah ayaa loogu talagalay in laga dhisay goobo waxbarasho iyo sidoo kale goobo isbitaal kaasoo lagu daaweyn doono dadka Soomaaliyeed si lacag la'aan ah. ra'iisul wasaare xigeenka ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in halkan laga dhisi doono goobo loogu talagalay in wax lagu baro agoonta iyadoona dhismahan ay fulinayso hay'adda Turkiska ah ee Kismi Yokmo. munaasabadan lagu dhagax dhigay goobahan laga furayo caafimaadka iyo waxbarashada ayaa sidoo kale waxaa ka soo qayb galay wasiir ku xigeenka caafimaadka Macalin Cali Aadan. ugu horeyn halkaasi waxaa ka hadlay ra'iisul wasaare xigeenka dalka Turkiga isagoona sheegay in aad iyo aad ugu faraxsan yahay in dalka Soomaaliya ay ka hirgeliyaan goobo waxbarasho iyo sidoo kale goobo caafimaad. Değerli hocam, biz varız diyenlerin Somali'de de var olduklarını waxaan lagu aqdisi doonaa iskuul lagu baranayo caafimaadka waxa kaloo lagu sii aqdisi doonaa xarun agoonta wax lagu bari doonaa hadii Ilaahay yiraahdo. munaasabadaasi kadib ayaa waxaa saxaafadda barnaamijka kula hadlay wasiir ku xigeenka caafimaadka Macalin Cali Aadan. isbitaalkaas oo loogu talagalay in lagu daaweeyo dad ardayn wax lagu baro qayb kaloo isla isbitaalka kamid ah waxaa loogu talagalay in macnaha ilmaha caruurta oo agoonta ah wax lagu baro noloshoodii iyo adiga arrimahooda dhan meesha. sidoo kale halkaasi waxaa ka hadlay madaxa hay'adda Kismi Yokmo oo iyadu fulinaysa dhismahani. Hastanemiz çok büyük olacak. Nasip olursa içinde inşallah büyük hastanelerde bulunan. Ayaan ka furi doonaa sida qalliimada pediatriga qaybta dumarka ortopediga. iyadu waxay tahay dawlad si weyn ugu caawinaysa dadka Soomaaliyeed dhanka caafimaadka iyo waxbarashada iyadoo ay iminka haatan halkan ra'iisul wasaare ku xigeenka dalka Turkiga uu ku dhagax dhigay goobo laga dhisay iskuulo iyo sidoo kale goobo waxbarasho iyadoo goobtani sidoo kale laga dhisi doono isbitaalkaas oo ku daaweynaya dadka Soomaaliyeed.